xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanada Jubbaland ee ku bahoobay golaha midnimada badbaadada Jubbaland ayaa maanta shir jiraayad ku qabtay magaalada Muqdisho waxayna digniin u direen dadka doonaya in ay ka qayb galaan caleemasaarka Axmed Madoobe oo lagu wado in uu 9 bishan uu ka dhaco magaalada Kismaayo ee ku aadan maalinta Arbacada ah ee soo aadan goluhu waxay sidoo kale sharci darro ku tilmaameen diyaaradii shalay ka degtay magaalada Kismaayo oo sidii mas'uuliyiin ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Galmudug shirka jiraayad ee wadajirka ah waxa uu horeyn ka hadlay xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka waxa uu sheegay in siyaasiyiinta meesha gaartay ay ku socdeen qaab ismiidaamin siyaasadeed ah shalay waxa dalkeena si sharci darro qayb ka mid ah magaalada Kismaayo ugu dagay diyaarad sida wafuud sida la sheegay anigu wafd waxaan u aqaanaa kii marka ugu horeysa protocol leh kii marka ugu horeysa ba leh muxuu ahaa amnigiisa uu sugan yahay dad doonaya suicide political suicide inay sameeyaan ayaa shalayto magaalada Kismaayo diyaarad oo red off ah oo diyaaradaha ka baxsan jadwalka diyaaradnimo ka baxsan oo qatar gelin karto hawada Soomaaliya sababtoo diyaaradda hadii ay sharci darro ku socoto oo waxaga ay wayso oo qadkii dadkii dajin lahaa iyo dadkii hagi lahaa iyo modificationka inta laga dhumin karo oo qatar dhimasho ay ka imaan karto oo diyaarada kala ku dhici karaan dhankoodu waxa iyaguna ka hadlay waxgaradkii ka soo qayb galay waxa ayna tilmaameen dhamaantood in waxa Kismaayo ka socda ay yihiin sharci darro laba qodob Kismaayo Soomaali baa iska leh Kismaayo lama soo iibinin meel kale laga ma keenin Kismaayo Soomaali baa iska leh qariirada Soomaaliya ku jirta waxa cajiib ah wax la yaaba diyaarad qaraab ah insurance aan lahayn waxba aan lahayn meel isaga tuuri in wax lagu soo qorqoro oo la soo qaato waliba mas'uuliin xildhibaano mas'uuliin hore ay soo qaataan meel laga hagaay email kale waxba aysan jirin Kismaayo la keeno horta ayaan darro waay waxaan u arkaa diyaarad miig ah oo inta soo kacday dalka anaga xasuuqday aan u arkaa taas Axmed Madoobe 8 sano madaxweyne ka soo ahaa oo power iyo xoog ahay waxaana ninkii maantiiradu ka ambeegareeyay la warninkan 8 sano siyaariyaha loo sii kaadi uguma campaign gareynaynin inuu yiraahdo dalka yaga ha soo gasho Kenya oo qolo kale la siiyo taas ma aqbalayno waana ka noqonay waana ummadda Soomaaliyeed ka raali gelinayo qodobka labaad waxaan Soomaaliya ka raali gelinayaa niman badan oo asaga iyo dani ay kamid yihiin maadaama aan suldaankoodii ahay waxay ku dhaqmayaan ummadda Soomaaliyeed ka raali gelinay isku mid laga noqdaan leh dad baa qalad ku saxaaya dadka qaladka ku saxaaya misna mas'uuliyiin sheeganaya burburinaya danaha iyo ujeedada shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin waxaan ugu digayaa inay ka waantoobaan burbur hor leh looma baahna shacabkaas wuxuu u baahan yahay in loo dhimriyo ugu dambeynna gudoomiyaha golaha midnimada iyo badbaadada Jubbaland Ducaale Aadan Maxamed ayaa isaguna sheegay in Kismaayo lagu kala bixi doono dhawaan baadida ku raagtay ee u qaatay odagu inuu leeyahay waxa hadda calaamadaheedii ay socdaan oo raadkeeda ku raad joognaa inuusan lahayn in la baruuf gareeyo waxaan rabaa dadka deegaanka jooga ee dhulka dhibaatadu ka taagan tahay jooga inaan tacsi u diro uga tacsiyeeyo naftayada iyo tiinaba iyo gudaha Soomaaliyeed inta dhimatay ee maalin walba dhimata xabsiyada inta ku jirta ee la xirxiray inta carartay ee duurka ku jirta ee go'doonsan ilaa hadda meel jaani cirib dhigeen la laayahay kuwa ciilka iyo cuqdada ku dhaxaysa magaalada dhexdeeda ku sabra wax yar baa dhiman ilaahay idankiis waqti aan fogeyn Kismaayo waa lagu kala bixi doonaa iyo Jubbaland oo dhan Maxamed Ismaan Daahiye Somali Cable Muqdisho